gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta golaha guurtida ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda shubanbiyoodka ka taagan qaar ka mid ah gobolada dalka isagoo gudoomiyuhu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa aanu kala hadlahay waxa weeye ilaahay raga qaado ilaahay raga kor qaado dawladdiina sidaa aad tidhaaheen iyo dadweynaba gulmay هيدنا ما كذا وتكتان كان كذا يجوجوتان وقربتان مركا إلهي وين بعيننا إلهي عذق هنا قال إله مقادك maray warbaahintu wax ka weydiisay saamaynta uu shubanbiyoodkan ku yeelan karo doorashada la filayo dhawaan inay dalka ka dhacdo ayaa waxa uu ku jawaabay أنت كوري صار إلهي كبر الرئيم ومضغط هذه الدورة شو هاي الدورة إن شاء الله حمينا الله ما يهدام كحين إن شاء الله نقاسين إلهي نقاسين يروني يرو كاسو تريد وشكير بيني إن شاء الله تدق لهم الله آمين si kastaba ha ahaatee hadalka gudoomiyaha golaha guurtida ayaa ku soo beegmaya xilli ay qaar ka mid ah gobolada dalka uu ka dilaacay xanuunka shubanbiyoodku maxamed daaq ismaaciil xaashi bulsha TV hargeysa